بسم الله maantana barnaamijkeena waxaan ku xasuusan doonaa xilligii Joe Biden yiri haddii Israa'iil aysan jiri lahayn waxaan ku qasbanaan lahayn inaan alifno ama aan abuurno xilli laga joogo ku dhowaad 40 sano Biden oo markaas aan ahayn madaxweynaha Mareykanka laakiin ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee sanadka ayaa sheegay haddii aysan Israa'iil jiri lahayn in Mareykanku ku qasbanaan lahaa in uu sameeyo Israa'iil si uu u ilaasho danihiisa bariga dhexe waxay ahayd 1986 xilligaas wuxuuna sheegay in dadku ay iska daayaan raaligelinta ay ka bixinayaan taakulaynta iyo taageeridda Israa'iil wuxuuna sheegay $3 bilyan oo la siiyo in ay tahay maalgelinta ugu fiican ee Mareykanku sameeyo waagaas kadib waxaa jirta marar badan oo ka dhawaajiyay arrimo la mid ah arrimahaas taas oo muujinaysa taageeraha uu u hayo iyo jacaylka waxa loogu yeeray Israa'iil haddaba ninkii saas ahay 40 sano ka hor xilli uusan ahayn madaxweynaha Mareykanka maanta uu madaxweyne Mareykan noqday maxaa laga filan karaa taasi waa iska muuqataa oo maalmihii la soo dhaafay kadib weerarkii Xamaas intaasoo mar ayuu ka hadlay una muujiyay taageero Israa'iil u soo diray xogayihiisa arrimaha dibadda u soo diray 2,000 oo ciidamo ah dhowr markab oo dagaal haddana waxaa la sheegayaa inuu asaga qudhiisu imaan doono Israa'iil siina doono taakulo ah $10 bilyan